sababta ay dumarka Soomaalida u badan ay u doonayaan inay dabaal bartaan iyo dowladda Sweden oo arrintaasi ka caawinaysa. Dowladda Sweden gaar ahaan maamulka degmada Java ee magaalada Stockholm ayaa tababar dabaasha u furay hooyooyin Soomaaliyeed si ay caruurtoodu ay u badbaadiyaan xilliyada dabaasha isla markaana ay qudoodu uga faa'iideystaan. Hooyooyinkan ayaa dirsaday codsi ah in la siiyo tababarkan si ay caruurtoodu ay uga caawiyaan iyada oo si gaar ah dumarka oo kaliya loogu qorsheeyay tababarkan. Seminaarkan oo loo qorsheeyay in uu socdo muddo dhowr bilood ah ayaa horaanta bisha September bilaabanaya iyadoo in ka badan 20 hooyooyin ah ay ilaa iyo haatan ay soo diiwaangeliyeen. Dowladda ayaana bixinaysa qarashaadka ku baxaya koorsooyinkan iyada oo sidoo kalena ay bixinayaan macallimiin ay dowladdu shaqaaleysiisay. Gudoomiyaha degmada Java Cabdirashiid Maxamed ayaa BBC-da ugu waramay waxa uu ku bilowday barnaamijkan iyo sababta keentay in loo baahdo. Maamul ahaan kadib markii ay codsi noo soo dirsadeen hooyooyinkan degmada, waxaan u furnay casharo dabaal si ay naftooda iyo sidoo kale caruurtooduba ay uga caawiyaan. Waxaa jira in horey aan u bixin jirnay casharadan, haddana aan dib u bilownay maadaama hooyooyin badan ay ka faa'iideysteen, ayuu yiri Gudoomiye Cabdirashiid. In ka badan 90,000 oo qof ayaa degan degmada Java ee magaalada Stockholm iyada oo dhammaan hooyooyinka degan ee isugu jira Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahaynba ay qayb ka yihiin tababarkan ay dowladdu u qoondeysay. Maadaama ay degmada ay degan yihiin 92,000 oo qof, barnaamijkan waxa aan ugu talagalnay in ay dumarka oo dhan ay ka qayb qaataan. Uma furno oo kaliya dumarka Soomaalida balse waa waxa degmada oo dhan ay leedahay, ayuu sii raaciyay Gudoomiye Cabdirashiid Maxamed. Gudoomiyuhu waxa carabka ku dhuftay in muhiimadda ugu weyn ee barnaamijkan ay haweenku ay u soo codsadeen ay tahay in xilliyada kuleelaha ee caruurta la geeyo meelaha dabaasha aysan cabsi ka qabin in ilmahoodu ay caawiyaan ababa ilmaha yar ay laftiisu ay baraan dabaasha. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay tahay in hooyooyinka degmada Java ay isku bartaan maadaama ay caruurtoodu yihiin isku waxbarasho, sidoo kalena looga go'an yahay isdhexgal bulsho oo guud. Mid ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee ka marakacaya awoodda guud ee dabaasha ayaa waxa ay u qabato halbowlayaasha sida xididada dhiigga, cudurrada ku dhaca wadnaha, waxa sababa xannibaadda halbowlayaasha dhiigga kaliya kama soo qaadaan qayb ka mid ah jirka oo kaliya. Waxay sidoo kale ay xoojiyaan garaaca wadnaha, ballaarinta iyo sidoo kale dib u gudashada marka ay tan sameynayaan. Marka aad si xoog leh aad u dabaalanayso waxaad isticmaalaysaa murqo badan, taas oo faa'iido kale u leh dabaasha. Sidoo kale waxa ay ka caawin kartaa in aad noolaato waqti dheer sida ay cilmi-baarayaashu ay sheegeen. Daraasadan ayaa waxay ka faaloonaysaa faa'iidada la hubiyay ee dabaashu ay leedahay, waxayna ku baaqaysaa in la joogteeyo si caafimaadka jirka loo ilaaliyo. Daraasadan waxay muujinaysaa qaybaha sida gaarka ah caafimaad ahaan ay ugu wanaagsan tahay dabaasha. Sidoo kalena cilmi-baarayaashu waxa ay qabaan dabaashu in ay tahay mid caafimaad ahaan u wanaagsan kala goosyada. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixintii aynu kaga hadlaynay hooyooyin Soomaaliyeed oo casharo ku saabsan dabaasha loogu barayo degmada Java ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.